الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد waxaan ku guda jirnay maadada biology-ga fasalka 12aad ee dugsiga sare biology secondary form 4 haddana waxaan u gudagalaynaa casharkii. bismillaah maanta waxaan ka hadlaynaa thyroid glands qanjirka thyroidka. qanjirkan wuxuu ku yaalaa qoorta ayuu ku yaalaa iyo qanjirkan kale loo yaqaano parathyroid glandska iyo sin qoorta ku yaala. labadaas qanjir waan isku soo horjeedaan oo hormoonada antagonistic la isku dhahayo ayaa la isku dhahayo oo isku soo horjeedo lit isku ah. labadooda marka waxa isku soo horjeedaan, mid waxa calcium sare u qaada, mid waxa hoos ayuu dhigaya haddaan barnayna duulayd. The two lobes waxa labo wareeg ayuu ka kooban yahay of thyroid glands qanjirkan oo loo yaqaano oo thyroidka are located wuxuu ku yaalaa near the lower parts of the larynx. dhuuntan loo yaqaan larynx-ka ayuu dhow yahay, qaybteeda hoose ayuu dhow yahay as show in figure 2.8 ayaana lagu tusay oo si sawirkan aad ka aragtid oo hyoid oo bone oo lafta jaarta loo yaqaan dhuunta ayuu ku yaalaa waa epiglottiska ayuu ka hooseeya larynx waa kana marka midama oo waxaa ku hoosay marka thyroid glands qanjirka waa kana oo wuxuu ku rakibay marka qoorta qaabkaas uu rakibay yahay trachea markii oo thyroidka laga sii taga ayaa ka hooseeya madina hunguro cadaha. The thyroid glands qanjirka loo yaqaano secrete wuxuu soo daayaa 3 hormones, 3 hormoon ay soo daaya primarily thyroxine waxa asaasi ama midka koowaad la soo deynaya thyroxine waaye. sidoo kale wuxuu soo daaya small amounts of triiodothyronine, hormoonka loo yaqaan triiodothyronine oo had yar ayuu soo daaya. Collectively referred to as si wada jir ana waxa loo yaqaanaa thyroid hormones ayaa loo yaqaanaa an iyo calcitonin iyo hormoonka loo yaqaan calcitonin. Thyroid hormoneska thyroid stimulating hormone, hormoonka loo yaqaan thyroid wuxuu caariyaa oo TSH ayaa laga soo gaabiyay oo regulating wuxuu xukumaa the releasing soo deeyitaanka of thyroid hormones, hormoonada la isku dhaaya marka thyroid hormoneska. The thyroid hormones helps wuxuu caawinayaa maintain normal heart rate, heerka oo wadna garaaca ayuu xawaashay normal oo ka dhigaya uu joogteynaya. Blood pressure cadaadiska dhiigga body temperature heerkulka jirka ayuu xawaaye oo normal ka dhigaya mid oo caadi ah ayuu xawaaye oo ka dhigaya uu joogteynaya. They stimulate enzymes, sidoo kale wuxuu caarinayaa dhacanada loo yaqaan enzymes oo wax burburiya that are associated kuwaas la xiriira with glucose oxidation oo gubitaanka sokorta iyo oxygen consumption qaadashada hawa oxygen-ta generating heat. sidoo kale wuxuu abuurayaa kuleel ayuu abuurayaa increasing cellular metabolic rate, heerka xaddiga oo dheefsiga unuga ayuu kordhinayaa markii xawaayo aad wax dheefsanaysid. dheefsi maxaa markii raashinkii oo injectionki waxa cuntid injectionki oo digestionki absorptionka oo metabolism kaas waa marka dheefsiga. They also promote sidoo kale wuxuu carbohydrates, sidoo kale wuxuu sare u qaadaa isticmaalida carbohydrates of food of fat usage, sidoo kale isticmaalida duxda ay sare u qaadaa for energy tamar ahaan. Calcitonin hormoonka loo yaqaano in addition waa to thyroid hormones waa hormoon dheeraad ah oo loo yaqaano thyroid hormoneska iyo thyroid glandska ayaa laga soo daayay. Thyroid glandska qanjirka loo yaqaan thyroid glands also sidoo kale secrete wuxuu soo daayaa calcitonin, hormoonka loo yaqaan calcitonin which plays a role wuxuu door muhiim ah oo ka qaataa in maintain properly level of calcium in the blood. waxaa calciumta dhiiga ku jirto heerarkeeda ayuu xawaayo uu saxaya uuna joogteynaya. When the blood calcium concentration markii waxa kunaanta calciumta oo dhiig ku jirta oo rises too high oo aad ay sare ay u kacdo calcitonin hormoonka loo yaqaan stimulating waa la carinaya
the uptake of calcium wuxuuna qaadayaa calciumta ayuu qaadayaa intuu bones wuxuu geenayaa lafiya ayuu geenayaa. Das haddaba lowering its level in the blood wuxuu hoos u dhigayaa marka calciumta ku jirta oo dhiigga iyo heerarkeeda hoos u dhigayaa. Parathyroid glands qanjirka loo yaqaan parathyroid glandska parathyroid glands qanjirka loo yaqaan parathyroid glandska are four small glands wuxuu ka kooban yahay marka qanjiro kukusan oo 4 ayuu ka kooban yahay. Attached waxaynu ku dhigeen to the thyroid ayuu ku dhigeen. Figure 2.9 ayaa lagu tusay jaantuska 2.9 oo kuwana marka labada dhinac parathyroid glands dhinac laba parathyroid glandska wuxuu kasoo horjeedaa isaga marka oo thyroid glandska ay kasoo horjeedaa oo labadan kuuskuusa marka kuusku ee halkan laba kuuskuusa ee halkan laba kuuskuusa iyo 4 waay marka laba dhinac maxaa 2 iyo 2 waa isku dar waa 4 waa. Okay, when blood calcium level markii waxa heerarka oo calciumta ee dhiiga are too low markii hoos ay u dhacdo the parathyroid glands qanjirkan loo yaqaan parathyroid glandska increase production wuxuu sar u qaadayaa soo saaritaanka of parathyroid hormones hormoonka loo yaqaan parathyroid wuxuu sar u qaadayaa parathyroid hormoonka loo yaqaan increase blood calcium level wuxuu sar u qaadayaa heerarka calciumta ee dhiiga ayuu sar u qaadayaa baa soo carnaya the bones lafaha to release calcium si soo deeyaan marka calcium kan marka hormoonkan loo yaqaan parathyroid glandska wuxuu burburinayaa isaga osteoclast wuxuu burburinayaa lafiya burburinaya kan maxaa waaye lafiya ayuu dhisayaa oo thyroidka kan marka waxa parathyroid calciumti ayuu sar u qaadayaa kan waxa calciumti hoos u dhigayaa. The action of this hormones ficiladani oo hormoonkan also sidoo kale wuxuu sababayaa the kidneys with kilihi to reabsorption more calcium si loo soo nuugo calcium badan and iyo the intestine iyo waxa waaye oo mindhiciraha to absorb more calcium si loo soo nuugo calcium badan from food oo calciumtan oo intestine laga soo nuugayna cuntada ayaa laga helay. The thyroid and parathyroid glands qanjirka labadan qanjir loo yaqaan thyroid iyo parathyroid glandska have opposite effects waxay leeyihiin marka saameyn iska soo horjeeda ay leeyihiin on blood calcium level heerarka calciumta ay dhiiga ku jirta. Kan macna parathyroidka maxaa waaye calciumta ay sar u qaadaya thyroidkan maxaa hoos ay u dhigaya marka iska soo horjeedaan. However sadarade as they work waxay u shaqeeyaan as they work together waxay u shaqeeyaan marka si wada jir ay u wada shaqeeyaan they maintain homeostasis waxayna joogteynayaan marka isku dheelitirka jirka ay control ama waxa waaye isku dheelitirka calciumti ayuu waxa waaye joogteynayaan. Parathyroid glandska qaabkan ayuu u saameeyaa stimulus wuxuu carinayaa markii calciumti ay ku yaraato dhiiga low blood calcium parathyroidska waxa waaye glandska qanjirkan marka wuxuu deynayaa dhacaan oo secretes halkan marka wuxuu saameynayaa meelihii saameynaya kuwana oo marka balaas aad aragtid mar walba waxa waaye positive feedback waaye falcelinta oo positive. Okay, waxa marka small intestine ayuu saameeyay marka idan ka bacdina waxa la soo nuugay calciumta la soo nuugay oo then marka activates of vitamin D response increase marka waxa laga jawaab celinaya marka wixii oo calciumti yaraatay ayaa sar loo qaadaya marka waxa kan sidoo kale wuxuu saameynaya kidneyska kilihi soo dib ayaa la soo nuugayna oo excretion wixii oo calcium reabsorption of calcium la soo nuugaya then marka waxa la saaray calcium waxay ku dhigan tahay calcium phosphate ayuu ku dhigan tahay then phosphate waa caadi waa loo saaraya qaab qishar ahaan loo saaraya then marka wuxuu ku jawaab celinaya calcium yaraatay. waa kana sidoo kale lafaha osteoclast waa kana lafiya ayaa la burburinaya dan wuxuu saameynaya effector wuxuu saameynaya lafihii osteoclast dissolving waradan calcium oo phosphate ku dhiganayd ayaa hawa crystals in bones releasing calcium ay la soo deynayaan ka bacdan uu kordhaya. adina waxa loo baahan yahay marka in calcium oo la xukumo kan negative feedback alsi xukumaya xukumitaanka marka la soo xukumayo
thyroid glandiska ayaa wuxuu soo deynayaa oo calcitonin marka qaabkaas hadin lagu sii xukumaya. Adrenal glandis qanjir kiliyeedka. The adrenal glands qanjir kiliyeedka arlukeed wuxuu ku yeelaa just above each kidneys, kili kasta ayuu ka sareeyaa. Figure 2.10 waxaa lagu tusay jaantuska 2.10 waa kana right adrenal glandis iyo left adrenal glandiska kidneyska. qaybtan oo sare ay waxaa laga soo qaaday marka autopsy in yar kooban laga soo qaaday marka microscope laga aado cortex waa qaybtan oo yellowga camal ah iyo medulla qaybtan oo red-ka oo biyaha camal u eg waaye marka meelahaas ay ku kaliyaan. Each gland qanjir kasta is composed wuxuu ka kooban yahay of an inner portion qayb hoosaad oo loo yaqaan the adrenal medulla kili gudeed ayaa loo yaqaan iyo an outer layers lakab sare oo loo yaqaan the adrenal cortex kili dibadeed ayaa loo yaqaan. Adrenal medulla kili gudeedka the adrenal medulla kili gudeedka produce wuxuu soo saaraa 2 amino acid basic hormones, laba hormoon oo asaasi ah amino acid ka samaysan ayuu ka kooban yahay. hore waxaa soo sheegnay hormoonada waxaa loo qeybiyaa labo hormoon ka kooban waxa waa steroid dux ka samaysan hormoon ka samaysan amino acid ayaan soo sheegnay oo kala amar labada hormoon epinephrine iyo non-epinephrine. These hormones hormoonadan aldosterone waxay abaablaan the nervous system reaction falgalada habdhiska dareemayaasha ayay abaabulaan. Stress waxayna ku sameeyaan walaac it is fight waxay dhalinayaan dagaal or amse flight oo carar response to danger waxayna ka jawaab celinaysaa marka khataraha oo ay ka jawaab celinay. When a person is stressed markii oo shakhsiga walaac ku beermo the medulla secretes kili gudeedka waxay soo deynaysaa epinephrine and non-epinephrine, labada hormoon ay soo deynaysaa oo epinephrine iyo non-epinephrine into the blood stream. waxaa lagu soo deynayaa marka xididada dhiig ayaa lagu soo deynayaa. This hormone xididada dhiig ayaa lagu sii deynayaa ama lagu soo deynayaa. These hormones hormoonada increase heart rate xaddiga oo wadna garaaca ay sare u qaadayaan hormoonadani. Blood pressure cadaadiska dhiigga, blood glucose level heerarka glucose heerarka sokorta ee dhiigga and blood flow qulqulka dhiigga to the heart ee ku qulqulaya wadnaha iyo lungs iyo sababaha. The epinephrine and non-epinephrine hormoonada la isku dhahay epinephrine and non-epinephrine also sidoo kale stimulate waxay carinayaan enlargements of the bronchioles tubes tubooyinka hungurmareenka ayay balaarinayaan iyo dilation of the pupils sidoo kale waxay carinayaan oo waxay balaarinayaan wiilka isha oo qaybtan madow oo ayaa waxaa loo yaqaanaa wiilka isha loo yaqaano. Adrenal cortex kili dibadeedka adrenal cortex kili dibadeedka responds isaguna wuxuu ku jawaab celinayaa to adrenocorticotropic hormones oo ACTH oo laga soo gaabiyay. hormoonkani marka waxaa laga soo daayaa oo anterior pituitary glands ayaa laga soo daaya laakiin hormoonkan waxaa keenay saameyntiisa hypothalamus maskaxda loo yaqaan hypothalamuska which is secreted waxaa laga soo daaya by anterior pituitary glands ayaa laga soo daaya. Stress causes saameyntan waxaa keenay laakiin oo walaacani waxaa keenay the hypothalamus maskaxdan oo hypothalamuska ayaa keentay to secrete waxay soo deysay adrenocorticotropic hormone releasing hormone hormoonkan ayaa soo deysay loo yaqaano adrenocorticotropic hormone. ACTH oo laga soo gaabiyay oo adreno oo laga soo gaabiyay tin oo laga soo gaabiyay C oo laga soo gaabiyay cortico oo laga soo gaabiyay tin oo tropic laga soo gaabiyay C oo laga soo H oo laga soo gaabiyay hormone laga soo gaabiyay. Then kadib hormoonkani oo stimulates wuxuu carinayaa the adrenal cortex kili dibadeedka ayuu carinayaa to produce wuxuu soo saarayaa the steroid hormones hormoonada oo duxda ka samaysan ayuu soo saarayaa. Cortisol iyo aldosterone labadaas hormoon ayuu soo saarayaa oo yaa soo saaraya marka kili dibadeedka ayaa soo saarayso. yaa cariyay adrenocorticotropic hormone ayaa cariyay.
cortisol hormoonka loo yaqaan shaqadiis maxaa marka promote the production of glucose wuxuu sare u qaadayaa marka soo saaritaanka sokorta ayuu sare u qaadayaa from protein making usable waxaan laga keenay sokortan from protein ayaa laga keenay making usable energy waxayna ka sameynayaan marka tamar la isticmaal karo available heli karaan to cells unugyada aldosterone hormoonkan loo yaqaano oo isagana helbis wuxuu caawinayaa rise blood pressure wuxuu sare u qaadayaa cadaadiska dhiigga iyo sare u qaadaya volume iyo qiyamka ama xaddiga by volume hawa qiyamka by stimulate sidoo kale wuxuu by stimulating wuxuu caarinayaa saltis cusbooyinka an iyo water iyo biyaha retention dib ay u heynayaan by the kidneys kilyaha ayaa dib u heynayo okay gonadis hormoonka loo yaqaano gonadis oo gonadis waxaa loo yaqaanaa qanjir tarameed ayaa loo yaqaanaa gonadis qanjir tarameedka oo the ovaries gonadis waxaa la isku dhahayaa ovaries iyo testis ayaa la isku dhahayaa gonadis the ovaries ugxaanta is female waxaa laga helaa dhediga ayaa laga helaa an iyo the testis xiniyaha in male ayaa laga helaa labka are gamete producing organism waxayna soo saarayaan xubnaha oo gametka ay soo saarayaan that also produce sidoo kale waxay soo saarayaan a group of steroid sex hormones hormoono oo hormoono jinsiyeed oo steroid oo hormoono waxaa koox hormoono ah oo jinsi ay soo saaraan oo steroid ka samaysan dux ka samaysan sex hormones hormoonada jinsiga regulate waxay xukumaan body changes isbedelka jirka ay xukumaan that begin waxayna bilaabaan at puberty qaangaar when is secreted marka la soo daayo hormoonkani by anterior pituitary ayaa soo daayay qanjirkan loo yaqaano anterior pituitary the hormones hormoonada luteinizing hormone loo yaqaano LH laga soo gaabiyay and follicle stimulating hormone oo FSH laga soo gaabiyay okay stimulate secretion waxay caarnayaan ay soo deeyaan of sex hormones hormoonada jinsiga ay soo deeyaan from the gonads ayaa laga soo daayaa qanjir tarameedka in female dhediga luteinizing LH and iyo FSH luteinizing hormone and iyo follicle stimulating hormone stimulate secretion waxay caarnayaan of estrogen hormoonka loo yaqaan and iyo progesterone hormoonka loo yaqaan from the ovaries waxaana laga keenay marka ugxanta ayaa laga keenay ama ugxansidayaasha laga keenay in preparation of for a possible pregnancy waxayna diyaarinayaan marka uur oo macquul ay diyaarinayaan this sex hormones hormoonadani oo jinsiga kuus waxay sababayaan the monthly release of an egg waxa waaye waxay saameynayaan marka ugxan oo bilo ah ayay soo deynayaan by an ovary waxaan laga soo deynayaa oo ugxansidayaasha and building up of the uterine lining sidoo kale waxay dhisayaan derbiga ilmo galeenka ayay dhisayaan estrogen sidoo kale also sidoo kale regulating wuxuu xukumaya female secondary sex characteristics astaanta jinsiga labaad ee dhediga ayay xukumayaan in male labka LH stimulating wuxuu caarinayaa the testis xiniyaha to secrecy loo soo saaro a group of sex hormones koox waxaa waaye koox hormoono ah oo jinsiyadeed qaabilsan oo labka ay soo saaraan kor loo yaqaan androgen testosterone hormoonka loo yaqaan is an androgen waa that regulate wuxuu xukumaa male secondary sex characteristics astaanta jinsiga labaad ee labka ayuu xukumaa alone waxaa weheliyay with FSH ayaa weheliyay testosterone sidoo hormoonka loo yaqaano also sidoo kale stimulating wuxuu caariyaa sperm production soo saaritaanka shahwada macnaha waxaa waaye gonadiskan waxaa waaye hormoono ayuu saameeyaa waxaana laga soo daayaa ovaries iyo testis ayaa laga soo daayaa ovaries testis markii laisku daro ayaa gonadis loo yaqaanaa sidoo kale luteinizing iyo follicle stimulating meelka dhediga wuxuu soo saaraa ugxan oo labkan wuxuu soo saaraa shahwo ayuu soo saaraa sidoo kale wuxuu mas-uul ka yahay
jinsiga ayuu mas-uul ka yahay. Jinsi markii aan leenahay human bini aadamka waxay leeyihiin 46 chromosome ay leeyihiin. 46daasi oo dhan marka ka qayb qaadanayaan oo jinsiga macna wax soo saar marka qayb qaadanayaan waa la kala qaybinaa marka 23 ka mid ah ayaa waxa waaye aabaha soo saaraya 23 waxa soo saaraya hooyada 23da la kala qaybinaa marka 23daasi waxa 22 ka mid ah somatic ee loo yaqaan marka qayb qaadanaya wax soo saar ayaga laakiin dhaxalka kale ay ka qayb qaadanayaan hal ka mid ah marka ayuu ka qayb qaadanayaa oo gametka ama jinsiga ka qayb qaadanaya wax soo saar hal oo marka oo aabaha hal hooyo isku dar marka 22 isku dar 44 taas ayaa waxa waaye waxay qayb qaadanayaan marka jinsiga ay somatic ka qayb qaadanayaan marka waa sidaa sidoo kale waxaa loo yaqaanaa gamete ama sex iyo waxa waaye somatic cells. Okay, halkan ayaan ku ekeynaynaa. Aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin dhageysigiina.